asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bidhaamiye oo ah barnaamij toddobaadle taxanaa oo ka kooban 12 barnaamij oo ku taxalluqa waxbarashada. barnaamijyada bidhaamiye waxaa diiradda lagu saarayaa mawduucyo kala duwan oo quseeya arrimaha bulshada ee dhinaca tacliinta. waxaanana xoogga ku saari doonaa fahamka iyo sida ay muhiim u tahay in bulshadu ay ka qayb qaadato ciribtirka jahliga. barnaamijka bidhaamiya waxaa guud ahaan uu ku socdaa Soomaalida waana ifiye tilmaame iyo hogatuse dhanka horumarka waxbarashada ah. waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waa sidee dhaqanka bulshada ee dhinaca waxbarashada marka la eego xaaladaha nolosha. qaybtanna waa qaybtii 5aad. waxaadna ku dhegaysan doontaan codod kala duwan oo arrimaha ka warramaya kamana marna kaalimihii suugaanta qusaysay tacliinta. ku soo dhowaada barnaamijkii bidhaamiya. dhaqanku waa wax weyn oo ummadda u horseedi kara wanaag marka laga eego dhanka fiican, sidoo kalena mar ku noqon kara caqabad dib u dhigta oo asaagaa kaa reebta. dhaqanku waa kan hadba la jaan qaada casriga la marayo, oo mar haddii dhaqanku uu ahaa waxbarashada gaalo ayaa wadataa, qofkii waxbartaana wuu gaaloobayaa. maanta dhaqankaasi ma jiro oo waa laga soo gudbay, inkasta oo uu waaye badan ahaa dabar adag oo aan laga gudbi karin. bulshada Soomaaliyeed waa bulsho dhaqan ahaan isku mida, walow ay beeralayda iyo xoolalayda kala duwan yihiin. dhammaantoodna si isku mid ah waxaa haysta caqabad dhanka waxbarashada ah. marka laga hadlayo caqabadaha waxbarashada, alaaba dadka waxa ay ku fikiraan waxyaabo la xiriira xagga dhaqaalaha iyo adeegga kale ee waxbarashada. laakiin caqabadaha waxaa ka mid a dagaalada ayaa sababay in ay xirmaan iskuulo badan iyo jaamacado. waxaa sidoo kale ka mid ah faqriga oo dadka aan waxaysan ku qasba in ay carruurta guriga iska joogaan, waayo dadkaasi in badan oo ka mid ahi ayaan awood u lahayn inay ilmaha u diraan iskuulka, iyaga oo la dagaalamaya nolol maalmeedkooda. waxaa kaloo caqabadaha ka mid ah in ilmaha ama carruurta loo adeegsado in laga sameeyo dhaqaale si reerku u daboolaan baahiyaha aasaasiga ah ee noloshooda. caqabadaha waxbarashada waxaa kale oo ka mid ah aaladaha social mediaha oo keentay in arday badani ay ka gudbi waayaan heerkii aqooneed ee loo baahnaa, iyagoo kaga mashquula facebookga, youtube-ka iyo waxyaabo kale oo la mida. haddaba ma jiraan wax kale oo caqabad ah oo haysta waxbarashada? waa kan xasan xuseen bile oo jooga degmada Luuq. haddii aan su-aashaas ka jawaabo, caqabadaha haysta waxbarashada iyo siyaabaha looga gudbi karo. caqabadaha waxbarashada haysta waxaa ka mid ah amniga. aan ognahay waddanka inta badan waxaa ka jiro amni darro, taasina waa mid ka mid ah caqabadaha waxbarashada ku xeeran, loona baahan yahay in laga gudbo, inkastoo hadda aysan ahayn sidii hore. midda labaad waxay tahay in macallimiinta aysan tayo lahayn ama aysan mararka qaar helin tababaro ku filan. taasina waa caqabad ayna u baahan in laga gudbo, isla markaana waxbarashada caqabadaha hortaagan ay ka mid tahay. sidoo kale caqabadaha taagan waxaa ka mid a dadkii bulshadii in badanoo ka mid ah sida meelaha fogfog ama tuulooyinka inaysan dad ku baraarugsanayn muhiimadda ay waxbarashada leedahay, ama dhammaan ilmaha aanan loo dirin iskuulaadka, gaar ahaan gabdhaha inaan waxbarashada lagu dhiirigelinin. taasina waa caqabad ayadana ka mid a caqabadaha waxbarashada ku xeeran, loona baahanya in laga gudbo. siyaabaha looga gudbi karo haddii aan aado, waxaa looga gudbi karaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ku baraarugto, ogaatana waxbarashada muhiimadda ay leedahay, isla markaasina ilmaha si siman wiil iyo gabarba waxbarashada loogu wada ogolaado ay dugsiyadana aadaan. sidoo kale in dowladda iyo hay-adaha caalamiga ay la shaqeeyo dhammaan inay ayagana ka qayb qaataan agabkii waxbarashada, dhismayaashii iyo tababarada macallimiinta. isla markaa kadibna waxaa laga goongaari karaa ama laga gudbi karaa caqabadda waxbarashada ku xeeran. marka waxaan isleeyahay intaas inay tahay. wuu mahadsan yahay xasan. waa lagaba maarmaan in qofka waxbaranaya la dhiirigeliyo si uu u helo deganaansho nafsiyan ah. haddaba sidee ahaan jirtay waxbarashada xilligii dowladdii dhexe? markii ay burburtayna maxaa caqabad ah ee yimi? haddase maxaa xal ah ee jira? ha inooga sheekeeyo cabdulaahi aadan cali oo jooga Baydhabo. caqabadaha
oo hadda jiro waxaa u weyn oo waqtigii markii dowladda ay burburtay caqabadooyin badan oo waxbarashadii la soo gudbaanatay caqabadahaas ay kow ay ka tahay dhaqaale darro waxaa laga yaabaa aabbaha gurigan inuu 11 qoys uu degan 11 qof uu ku nool yahay ama 3 qoys ama 4 qoys oo gurigan uu degan yahay waxbarashana caruurta aysan haysanin taasoo u sababa dhaqaale darrada oo soo wajahday wadanka Soomaaliyeed markii dowladda ay burburtay tan labaadna ma helayso macnaha qofku ugu dhiirigeliya anigan wuxuu rabaa inuu wax barto laakiin qof dhiirigelin u samaynayo oo dhahayo maanta waxbarashada saasana faa'iidana leedahay qof wax bartay waa saan qof wax bartay waa sidan qof aan wax baranayna waa sidan in looga sheekeeyo oo motivation ahaan uu helo ma jirto tan labaad haddana waxaa saamaynta oo waxbarashada saameeya colaadda sokeeya oo Soomaaliya ka dhacay ma jirto dad oo waxbarashada u safri karo oo maxaan lahayd degmo ilaa gobol ilaa meel kale oo hadda waxbarashada u aadayo marka waxbarashada aad ay u muhiimsan tahay tan kale hadda fursadooyinka waxbarashada lagu helay waxay tahay adoo Baydhabo iska joogtid ama Xamar joogtid ama Hargeysa joogtid ama Garowe joogtid waxaad baran kartaa jaamacadda online oo dal adeeg ka shisheeye aad maalin aan tagin aad ku helaysaa waxbarashadii oo nadiif ah casharkii macallinkii oo online ka cashar ahaan kugu siinay in hadda sanadadan tiknoolajiyada la helay waxaa jirto muhiimad fiican oo dadka waxbarashadooda ayaga u qaadanayso hab online oo casri ah ayagoo marka qaarkood ay isticmaalayaan googlaha ay cashare ay ka soo dejisanayaan manhajka maanta lagu soo diray ama exercise-ka macallinka maanta uu ku soo diray oo galabtiiba la soo degaysid internetka kala soo degaysid waa muhiimadda oo hadda ay leedahay waaye iyo faa'iidooyinka oo hadda waxbarashada ay leedahay laakiin waxaa kaloo ku jirto waagii hore control ay ahaan jirtay waxbarashada waa la control jiray manhajyada waa la control jiray hadda burburkii markuu dhacay waxaad arkaysaa manhajyo badan oo wadankaas ka soo galay ha u badnaadee kuwa carabta ay ka imaanayo ayagoo manhajka dowladda Soomaaliya ama muqarrabka dowladda Soomaaliya in la bedelay muqarrabo kale loo bedelistay ayadoo taas dhaqaalihii oo sabab u ahaa marka waxaan dhihi karnaa haddii la helo waxbarasho tayo leh oo wadanka dowladda maamusho hadda dowlad fiican wadanka noo maamusho oo manhajkii dowladdii dhan waa la bedelay kii kale oo cusub ee dowladda ay la imaaday macallimiintii control fiican lagu hayaa waxbarashadii hadda waxaan dhihi karnaa fursado fiican oo waxbarasho ah soo ziyaaday marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in kasii badan aan sii helno oo waxbarashadii oo laga sii helo oo macallimiin tayo fiican oo well trained ah oo dowladda tababar fiican ay siisay hadda jirto marka maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa dadkii oo baadiyaha joogay in caruurtooda ay soo dirsadaan tuuladii laga soo diro oo degmadii laga sii diro gobol loo dirsado oo la fahmay macnaha ay leedahay waxbarashada inuusan jaahil waxba aysan taraynin laakiin nin wax bartay waa bulsho wax bartay marka waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa maanta baro adna berri bar aad iyo aad buu u mahadsan yahay Cabdulaahi Aadam ummadda waxaa ka dhaxeeya waa dhaqan haddana dhaqankaasi wuu kala duwan yahay miyiga iyo magaalada haddaba waxbarashada kee ku wanaagsan maxaase caqabada ee lagala kulmaa haddaba haynoo faahfaahiyo dhaqanka miyiga iyo kan magaalada macallin xasan aadan cali oo ah maamulo iskuul bismillahi raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alayhi wasalam aadaad u mahadsantihiin marka dhanka hidaa iyo dhaqanka ee soomaalidu markii baadiyaha la jooga ayaga aada uga sareeya luqadii dhaqankii xikmadihii iyo mahmahooyinka soomaalida waxay ku badan yihiin dhanka iyo baadiyaha beledka marka la yimaada laakiin dhanka baadiyaha ma lahan waxbarashadan thaqaafiga ahoo iskuulaadkii iyo ma lahan laakiin dhanka diiniga qur-aankii
barashadiisa weliba waxaa la dhihi karaa barashada qur-aanka meesha ugu wanaagsan waa baadiyaha waay. dhanka kale soomaalidu waxay leeyihiin dad reer magaal ah ee beledka degan. dadka reer magaalka ah beledka degan waxbarashadooda markii laga hadlayo way ka duwan tahay tii baadiyaha. baadiyaha markii wax lagu baranayo mashquul badan ma jirin. canuga waxaa weeye inuu xoolaha raaco oo ku maqan yahay, inuu dugsigii joogo oo wax baranaya, inuu xaafada yimaado oo seexanayo, wax ka dhahay ma jirin. laakiin beledka markii la jooga ardaygii in badan waxaa ku furan waxyaabaha baranayo wax ka tara badan oo ah banoonigii, shanaamooyinkii, suuqii oo la wareega, waxyoob badan baa ku furan. marka dhankaa markii la feeriyaana dacfi dhanka beledka ah ayuu noqonayaa. laakiin waxbarashada guud beledka ku wanaagsan. masaajidadii, xalaqaadkii iyo markaas tacliimtii diiniga ayagaa ku wanaagsan. iskuulaadka iyo jaamacadaha wax laga helayaa beledka ayaa laga helayaa, magaalooyinka ayagaa ku wanaagsan. marka gabagabada marka waxaa weeye beledka iyo baadiyaha waxbarashada bulshada soomaaliyeed saasay u kala baxdaa. marka maanta haddii aan ka hadalno burburkii kadib waxbarashada, dadkii baadiyaha joogay laftirkooda waxay usoo guureen in badankooda soo galeen beledka. waxbarashadii la danaynayaa. waxaa la ogaaday maanta inuu noqday adduunkii caalamul awraaq, waa adduun ku tartamayo shahaadooyin iyo digrii. sidaa dartiye waxbarashadii ahmiyad badan bay dadka siinayaan, waa lagu dadaalayaa. caruurta saas oo kale way ku dadaalayaan. qof waliba wuxuu ku hamiinayaa inuu waxbarto, inuu marka sidaas oo kale darajo sare ka gaaro waxbarashada, shahaadaad sare ilaa PhD inuu helo ayuu ku dadaalayaa. marka caqabaadkeedina way leedahay haddana, laakiin dadka ahdaaftoodii iyo meesha maanta ay u soconayaan iyo marka fikirkoodii meesha ay hiigsanay ay doonayaan waa meel aada u sarayso wey. waxbarashadooda marka alxamdulilaahi noocaas waay. waxbarashada markii la yirahdo horta dhowr arin bay u kala baxdaa. mid waxaa weeye waxbarasho oo qofka inuu mahaaraadka lahaan karo, oo waxaa weeye farsamadiya ka mid ah. qofka inuu wax ku qoro iyo qofka inuu si practical wax u barto. marka waxbarashada qofka inuu marka qalan wax ku qorto xafay fasal fariista iyo qofka inuu farsamooyin wax barto wey. marka dadka Soomaaliyeed waxbarashada marka dhanka waagi hore waxay lahaayeen waxbarasho fara badan oo waxtar u leh. tusaale tan diiniga ay baranayeen waxtar bay u lahayd. waxaa jiray dad culamo ah oo diinta looga dambeeya, waxaa jiray dad culamo ah oo qur-aanka looga dambeeya, waxaa jiray dad dhaqanka yaqaano oo looga dambeeya, waxaa jiray dad yaqaana dhaqamada bulshadu kala duwan yaqaana ayaa jiray. marka cilmigoodu aad buu u farbadnaa, laakiin waa ka gadisnaa kan maanta. waa kaasa bulshada ay marka gacanta ku hayaan, waa ka gadisnaa. waa dhaqan waraafi ah oo dhaxaltooye ah oo qofka marka culture-ka bulshada waxaa la leeyahay oday hebel isaga yaqaana dhaqanka iyo xeerka isaga yaqaana, bal ha ka hadla arrinta la dhihi jiray. marka sidaas darteeda dhaqankii isaga ahaa maadaama dadkii miyiga ay ka yimaadeen oo beledka ay soo galeen, waxaad moodaa inuu si tartiiba u zuulayo. waxay marka u baxeen dadka dhanka thaqaafiga oo alxamdulilaahi in wax la qoro waxna la akhriyo ah, dhankaasay hadda u badan yihiin. laakiin dhaqankii hore waa lagu soo mooday, waxtar badan bay dadku lahaayeen. marka iskuma dhexyaacsanayn. culamada culumay ahayd, odayaashii iyo markaas waxgaradkan waxgarad buu ahaa. dhaqankii iyo markaas bulshada waxaa looga dambeeyey dadka waxgaradka ah. diinta waxaa looga dambeeyey culamada, dadka dad nidaamsan markaas waxa weeye ka dambeeyo odayaashood iyo culamadooday ahaayeen. marka waxtar badan bay lahayd.
waxay yaqaaneen beeraha oo kale xilliyada aqoon bay u lahaayeen bishaas roobka di'i doona waqtigaas jilaal waaye waqtiga xagaay waaye ay dhihi jireen cilmi iyo marka garashay u lahaayeen xoolaha oo karta markay xanuunsadaan way daaweyn jireen aqoon isooda alxamdulilaahi oo dhaxaltooy ay lahaayeen sidaas oo kale garta markii loo fariisto saas oo kale dawda iyo meelaha ay biyaha ka cabaano xoolaha ay ka waraabsan ay ku nooladaanna qaab loo maamulay lahay dad ba yaqaanay cilmigoodu yaqaanay marka waxa weeye dhagan waxtar u leh bay ahayd laakiin hadda waxa weeye arrinta iyada way zuushay in badan hadda waxa weeye waxa loo soo batay magaaladii iyo dhaqankeeda ayaa dadkii dakhiil ku noqday soo dhaxgalay marka Soomaalidu waxa weeye cilmigii horena saasay ugu faa'iideystay tan maantana waxa la rajaynayaa inay marka ka faa'iideysan doonaan insha Allah macallin xasan wuu mahadsan yahay waa hagaag waxa aad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii bidhaamiye qaybtii 5aad ee toddobaadkan waxa uuna ku saabsan yahay waa sidee dhaqanka bulshada ee dhinaca waxbarashada marka laga eego xaaladaha nolosha bulshada oo aqoonta ka dhisantaa waxa ay sahlaysaa in waddanka oo dhan uu hagaago ardo xuseen waa gabar joogta buurdhuubo waxa ay sharaxaysaa muhiimadda waxbarashadu leedahay waxaan ka hadlayaa inaan ka hadlo aan rabaa waxbarashada muhiimadda ay leedahay waxaan ognahay waxbarashada muhiimadda ay leedahay in ay tahay laf dhabarka bulshada hadiisan waxbarasho jirin inuu uusan aftiin jirin haduusan waxbarasho jirin ay nolol jirin hadaysan waxbarasho jirin dadka aad aragtay oo aqoon-yahanada inaan la heleen waxbarashada waa waxbarasho maxay tahay loo baahan yahay si fiican maxay tahay hadda waxa u maleynayaa in ardayda ay wax u barato waliba 80% ardada waa fiican tahay isku xirka macallimiinta oo kale ma sha Allah waxbarashada aad baan u soo dhaweyneynaa way mahadsan tahay arday noo sharaxaysay muhiimadda ay waxbarashadu leedahay ardaygu waa mid naxariis leh fikir qoto dheer leh lana shaqayn karo xallin kara mushkiladaha sidoo kalena waxa ay u taagan tahay in dawladda ay abaabusho jaana waxay u taagan tahay muhiim uma aha xoolo dhaqatadu waxbarashada intaa kadib u dir lambarka gaaban ee 313 ogsoono dhammaan fariimaha aad lambarkaasi gaaban u soo dirtaa waa lacag la'aan oo haraagaaga waxba kama goosanayaan mahadsanid fariinta caafimaadka ee coronavirus ee toddobaadkan ururka caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqay in cudurka corona oo sidoo kalena loo yaqaano covid-19 uu yahay halis caafimaad oo dunida oo dhan soo wajahday coronavirus waa caabuq ku dhaca neefmareenka oo lagu kala qaado dhibcaha dareeraha ah ee ka soo baxa afka ama sanka marka qofku qufaco ama uu hindhiso calaamadaha cudurka corona waa qufac qandho iyo neefta oo qofka qabata laakiin ha baqin adiga iyo qoyskaagaba waxaad isaga ilaalin kartaan cudurka corona adinka oo raaca tallaabooyinkan fudfudud gacmahaaga si joogtaa ugu dhaq biyo iyo saabuun muddo 30 ilbiriqsi ah marka aad qufacayso ama hindhisayso ku dabool afkaaga iyo sankaaga cududaada adiga oo suxulka laabaya waxaadna ku ridaa meel asturan marka aad tiishka ama mindiilka isticmaasho ka bacdi laakiin ha gashan jeebka ugu yaraan 1 mitir ka fogow qofka aad ku aragto qufac ama hindhiso ama leh calaamadaha kale ee hergebka haddii aad isku aragto qufac ama qandho joog gurigaaga oo ku dadaal masaafo 1 mitira in xubnaha qoyskaaga aad ka joogto si aadan caabuqa ugu gudbin xusuusnow dadka badidood uu ku dhaco cudurka corona waxa ay isku arkaan qandho iyo qufac oo xanuunkoodu waa mid sahlan inta badan waxaana ku filan in ay talooyinka caafimaadka ee la siinayo iyaga oo guryahooda jooga ay qaataan balse dadka isku arka neefqabashada waa inay si degdega u wacaan lambarka 449 ama tagaan xarunta caafimaadka ee ugu dhow balse dadka isku arkaya in ay neeftu qabato waa inay si degdega u wacaan lambaradan haddii aad joogtid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya la hadal 449 haddii aad joogtid Puntland garaac 343 ama tag xarunta caafimaadka ee kuugu dhow ilaahu naga badbaadi waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkeena soo gaadhnay tan iyo intaan isugu imanayno haddii Allah awood loo garaado toddobaadka dambe iyo barnaamij kale oo xiiso leh waa Yaasmin Muuse Xasan iyo Saciid Xagaa Afrax oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadey